haddaba barnaamijkeenna waxaynu ku faahfaahin doonaa xaaladda wararkii ugu dambeeyey ee kasoo kordhay dagaalka ka soconaya gobolka bariga dhexe. waataan ogeyn in Iiraan loo hanjabay oo la yiri saacadu markay xilliga ku dhacdo oo hadda waa soo dhaafnay saacadii waxaad la kulmi doontaan waxaan horey loo arag. adduunkii oo dhan baa sugayay ninkii Trump wuxuu sameeyo. haddaba war hadda dhow soo dhacay waxaa la leeyahay waxaa Trump uu sheegay in uu lagu heshiiyey 2 isbuuc in la hakiyo dagaalka. 2 isbuuc gudahoodana in wada xaajoodyada xoog loo galo dagaalkana markaa lagu dhameeyo. Trump marka wuxuu yiri arintan waxaa ka shaqeeyay ra'iisul wasaaraha Pakistan iyo taliyaha ciidamada Pakistan ayaa si wada jira uga shaqeeyay. waaye marka arinkan xabad joojinta Iiraan maxay ka tiri? wakaaladda wararka ee Tasniim war hadda iyadana soo dhacay waxay leedahay in Trump uu aqbalay shuruudihii Iiraan. sidoo kale telefishinka Iiraan ayaa isaguna warkaas sheegaya. Iiraan waxay taagan tahay shuruudaheennii aan gudbinay oo ilaa 10 ayuu aqbalay Trump. Trumpna wuxuu leeyahay waxaan ogolaaday weerarkii weynaa ee aan qaadi lahaa inaan muddo 2 isbuuc isaga iyo weeraradii kale lagu hayay Iiraan la joojiyo. waaye marka labadaas sheeko ayaa socota. Iiraan waxay leedahay waxayni ayuu cadowga Mareykanka iyo Saanuniyaduba ay aqbaleen leedahay. Iiraan saasay leedahay. waxaa la dhahayaa telefishinka Iiraan iyo wakaaladda wararka Tasniim iyo waxa dhan Iiraan saasay leedahay. CNN-ka ayaa isaguna hadda war soo geliyay. CNN-ka wuxuu leeyahay Israa'iil iyaduna way waafaqday ama way ogolaatay 2 isbuuc ee xabad joojinta 2 isbuuc ee xabad joojinta gudahood in markaa wixii dagaal lagu dhameeyo. ninka Trump marka wuxuu leeyahay arintanu Mareykan kaliya ma ahan xataa dawladaha gobolka bariga dhexe danahooda iyo wuxuuda la ilaalinayaa. saas darteed ayaga laftirkooda dantooda ku jirta. laakiin Trump wuxuu leeyahay shuruudda waxaa ka mid 2 isbuuc in meeshii xirnayd ee marinbiyoodkii Hormuz la fasaxo maraakiibta halkaa joogta kulligood ooda laga qaado. waataan ka hadalnay ilaa 2,000 oo markab sida ay qortay dhawaan jaridda la Wall Street Journal ayaa halkaa ku xadhiban. marka in maraakiibtaas ooda laga qaado 2 isbuuc marinbiyoodka si nabada lagu maro ayuu leeyahay ninka la yiraahdo Trump ayaa waxyaabaha lagu heshiiyay kamid Iiraan iyadu marnaba ma soo hadal qaadin. midda kale Iiraaniyiintu waxay leeyihiin xabad joojintani waxay saameynaysaa gobolka oo dhan. macnaha gobolka oo dhan maxaa laga wadaa? Israa'iil ma weerari karto Xisbullah. awlaadeedii lama taaban karo. in Iiraan inta lala heshiiyo oo meel lagu la yiraahdo 2 isbuuc xabad joojin kula galay oo haddana Xisbullah iyo Xuuti iyo jugta laga geliyo ma ogolaaneen. marka xabad joojintu waxay leedahay Iiraan oo lagu heshiiyay 2 isbuuc waa mid camimaysa gobolka oo dhan. dagaalka oo dhan joogsanaya 2 isbuuc cid weerari karta laba ma jirto. 2 isbuuc marka inta lagu jiro waa laga shaqaynayaa sidii heshiis daa'im loo gaari lahaa loogu bedeli lahaa oo xabad joojintii ay isku bedeli lahayd heshiis. marka Trump wararka kale uu soo qorayo waxaa ka mid xilligan wuxuu leeyahay annagu hadafkii ugu weynaa ee aan ka lahayn Iiraan waa gaarnay. macnaha wixii aan u weeraraynay waa ku guuleysay iska faanaya odaga waa taqaaniin waa ku guuleysanay. marka haddana waxaan rajaynaynaa 2 isbuuc
xabad joojintu socoto oo la hakiyay weerarada la hakiyay in markaa hawshu ay sidaa socon doonto marka waxaa leeyahay Trump warkiisu marka waa kaas Iran warkeeda iyaduna waa kaas Israa'iil war rasmiya hadda aan idila hadlayo wali kama soo bixin marka laga reebo warbaahinta Mareykanka gaar ahaan telefishinka CNN oo yiri Israa'iil iyaduna way waafaqday oo way ogolaatay marka cid kasta horta nafta haysa beeshaan Israa'iil waxa loo diyaarsaday caaw oo baaratay loo diyaariyay gantaalo waxa loo diyaariyay Faatax iyo Khaybar la yiraahdo oo Iran ay sheegtay waa la kala tagay tiri alaabtii maska ahayd waay oo saas u soconaysay haddaba marka alxamdulillah marka xaalku hadda wuu dagay wixii kacsanaa dhigta u taagneed qof walba dadka muslimiinta waxa duca ay gamayeen oo ay soo ridayeen oo ay lahaayeen ilaahayow Iran ka badbaadi waxa la maagan yahay ninkan ma nuclear oo ridi doona ma waxa soo samayn doona ninkan sidii shaba waxa ogaataan waa faataalo weyn waaya leeyahay ninkan waa nin oo ku handadaya haday ku martana nasiibka waxa handadaada waxaanoo dhan waxa waa handada waxa aan ku ridi doono leey laakiin Iran shuruudaha marka 10ka ah wariyaha ku sugan Al Jazeera ee magaalada Tehran oo goordhow la wareystaan dhageysanayay wuxuu yiri shuruudaha kuwa ugu waaweyn ilaa 5 ah ayaan xogtooda hayaa u leey 5taas marka waxa uu leeyahay in dagaalka sidii shaba la joojinayo oo xabad joojintani waxa kan iyo iska sheeka ay tahay koow midda kale wuxuu leeyahay Iraaniyiintu waxay ii sheegeen magdhowgii arintiisa in meel la saarayo oo maaratay wixii laga burburiyay Iran way doonaysaa waxay leedahay damaanad qaad ayaan u baahanahay howlo badan marka ay wada qodobada kamida marka qodobadeedii iyadu waxay leeyihiin warbaahinteeda gaar ahaan hadda saaran telefishinka Iran iyo wakaalada wararka Tasniim waxay leeyihiin shuruudaheeni ayuu Trump aqbalay waliba Trump ma dhahayaan waxay leeyihiin Mareykanka cadawga ah iyo shaanuuniyada leeyahay marka erayadaas ay isticmaalayaan marka al-umum marka muhiimada oo caawa ilaa saakay waa barigii hadda joogna aniga London xilligan waa waqti dambe waaye waa xilli waa bari ah waaye Soomaaliyana de waa iyaduna waagaaba si bari raba marka caawa marka wixii la filayay ma dhicin alxamdulillah dadka Iraaniyiinta ilaahay waa ka badbaadiyay ninka hamaga wuxuu rabo isaga ridi karaa nin maaratay xataa ay sheegeen waaye baarlamaankiisu waxay yiraahdeen xubno ka tirsan war ninkan mukhtal aqli waaye ninkan waa waalan mana maaratay inuu hogaamiyo ma u qalmay yiraahdeen wadan inuu hogaamiyo ninkan noocaas marka waa niman xildhibaanadiisii ay saas leeyihiin oo adduunkii oo dhan ay arkaan marka ninkan ilaahay baa horta shartii uu waday ka leexiyay wuxuu dabacsanaaba hadii war ay ka ahayd hadii handadaad iyo beenbeen ka ahayd hadii wax runa ay ka ahayd asaga u taala al-umum marka warkii halkaas ayuu marka ku dhamaaday hanjabaadii waxay ku soo gabagabowday in lagu heshiiyay 2 toddobaad oo dagaalka la joojinayo